maadaama adi ila soo xiriirtay familkayga qaarna ay dhaheen arrintan ka har annaga ku jirna saas daraadeed marka zaaid aan u maqlay arrin dhibta zaaid iyo dhibtana way ahayd waayahay marka waayo cabdisalaan ma ninkaaga oo 8 caruur aad u dhashay laakiin 5 haatan ay joogaan mase taqaana cabdisalaan qofku uu yahay horta cabdisalaan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaanaa cabdisalaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna anaa u keenay liano waa ogtahay qofka laynka waa la isdhaafsadaa marka maadaama asaga oo ilmo haystay anigana aan layn u baahnaa ilmaha aniga soo waday markaas anigoo weli markaas zaaid u yar marka ilmihii iyo aniga isku sidii aan u nimid wadanka Sweden waayahay markaad Sweden tagtay muddo intee leeg ayaad wada joogteen wax badan ma wada joogin asagana kulay gurigu deganaa anigana guriyaan deganaa inta badan marka waa saas laakiin qof walaalkay ah oo xiriir yani walaaltinimo naga dhaxeeyo oo ilmaha caawiso intaas oo dhan aniga waa ahaa waayahay haddii aad ahayd qof walaal aad u ahayd ilmahana aad caawin jirtay isagana uu yiri waa xaaskayga 8 caruur ay dhashay Soomaaliya ayaanba ku qabay sidee loo xalinayaa marka farqiga gaabka ay labadiin idin dhaxeey horta farqigaas horta waa mid dadka bulshada aad u wareeriyay anigan hani ay haysato xataa ku wareeray marka waxa noqonaysaa inaan taas ku xalino kulli anaga wadan sharci laha joognaa wadankaas waa inaan asagana uu dacwad tago anigana aan dacwad tago horta hooyo ilmaheeda inkareys inay jirto uma maleynaayo anigana Kamaal waa u sheegi lahaa hadii aan ilmahaas dhalihi lahaa ama uu igu qaadan lahaa ama uu iga tagi lahaa marka Kamaalna ma aha nin lacag badan oo aniga aan lacag u helanayo maanta oo aan isdhahayo qofkaan istujaanisa kugu dhaafayo marka ma u maleynaayo inaan saas sameeynayo qof nin qabana ilama ahan Kamaal iyo aniga muddo issukaansanayna u maleynaa inta issukaansanayna habeen walba waan isla hadli jirnay asaga buu ogyahay haduu hal mar xataa uu arkay nin ama ilmo waayahay laakiin wuxuu yiri sanadkii ugu dambeeyay cabdisalaan waxay la soo baxday wiji cusub oo xaafada badana maba jooginba marka taa ma la dhigi karaa sanadkii aad shukaansanaysay Kamaal wuxuu ahaa sanadkii aad guriga ka maqnay wallahi taas lama dhigi karo aniga qof shaqeeya ahay oo la og yahay maalin walba shaqeeya oo hal maalinna aan guriga joogin bulshada oo dhan ay ogtahay marka taas waxaan dhigi karaa waa been Kamaal ka horna aniga sidii aan hore u sheegay wiilala issukaansan jirnay Kamaal ka hor dada yaqaanay ani kulay qof Instagram wax badan ku jirta ahay maadaama ciwaanadeedii la jabsaday marka saas ee live gali jiray tartamaan ka qayb gali jiray tartan aqooneed oo kale todo qof si fiican loo yaqaanaa qof gabanaysa ma ahayn waayahay haniye ma waxaad leedahay gabadhii Najma ahayd oo aan codkeeda dhageystay iyo dareenkay ku hadlayso anigu ma dhalin saas waay Najmo hadii aniga qofka ciwaankayga hadda jabiyay Instagram-ka jabsaday horta aniga iyo Najmo dad waxaan ahayn meel isku la nool marka qofka Instagram-kayga jabiyay oo email-kayga jabiyay horta waa Najmo ma u maleynayo cunug inuu jiro hooyadiis email-kiisa jabinayo rabana inuu ceebeysto xataa cabdisalaan haddaan xaaskiisa runa ahaan lahaa ama nin aan kala tagno uu ahaa lahaa ma u maleynayo inuu saas ii ceebeyn lahaa waayahay Najmo waxaad dhahday waxaan ahayn dad meel wada joogo bal ii sharax maxaad ula jeedaa aniga iyo Najmo isku meel aan deganeyn macnaha dad kala shakin kara ma ahayn Najmo waa qof weyn anigana qof weyn ahay maadaama anaga aan markii horeetaba isla joognay dad isla yimid aan nahay hadda dad wax u kala baxsan yihiin ma ahayn saas daraadeed keentay in email-kayga uu saas ku jabo waayahay maxaa ku jabsata ayada waa gartay maxaa sabab marka in cabdisalaan iyo caruurtiisa dhamaantood inta meel ay soo fariistaan yiraahdaan hani waa xaaskayga hani waa hooyadee dalkay ka leeyihiin maxay tahay wallahi ma fahmi karo horta caruurta waa caruur fiican laakiin aniga waxaan qabaa inuu aabahood bedelay adigu ma wax xiriir ayaa kaala dhixay waxaad sheegtay inuu yahay qofkii ku soo waday markuu ku soo waday kadib ma xiriir baa kaala dhixiyay cabdisalaan may xiriir igama dhaxaynin laakiin xaaladoo dhanba waxay timid markii xataa meherkii markuu jiray xataa
qofka ugu horeeyay oo sawirka meherka iga qaado wuxuu ahaa sawirka aad meherka ood aragtay oo Kamaal meeshiisa uu soo saartay oo ii xiran yahay maalinkii meherka boorka xataa lagu soo dhajiyay aniga qofka iga qaado wuxuu ahaa Najmo arrinka mobilka ay iga qaaday ya markaas Najmo ayaad wada joogteen Sweden adigoo joogta ay sawirkaas ka aniga Najmo maal anaa ka dalbaday inay sawirkaas iga qaado maadaama sawir meherka aan u baahanahay waa gartay marka waxaa jira warar kale oo sheegaya in meherkii ka dhacay Afgooye wadaadkii adigu ku matalayay oo aad sheegteen inuu aabaha ahaa in uusan aabaha ahayno uu mala awaal ahaa bal arrinka maxad ka leedahay horta arrintaas horta waa qalad inay saas yiraahdaan horta aabahay ma ahayn waa run laakiin wuxuu ahaa qof aniga isoo korsaday oo ilaa yaraantayda ila socday marka arrinta aabahay iyo anigana aaday meesha la iiga faa'iideystaba horta waa meeshaas oo yacni mar walba la iigu hanjabi jiray marka arrinta aniga iyo aabahayna waa arrin secret oo ma rabo inaan hadda social media keeno haddii aan sheekadaas ka sheekeeyana waxay noqonaysaa mawduuc cusub bal haniye ilaahay baan kugu dhaarshay waxaa la leeyahay arrinkan 99% waa sax adiguna waad dafiraysaa maxaad isleedahay arrinkan cadeyntiisa waa la keeni karaa markii laga soo tago maxkamadda aad tiri wadan sharci leh ayaan joogaa soo hooyada iyo aabaha ma joogaan oo arrinkan cadeyn kara waalidkay hadda caawa u dambeysay waalidiinta qaar waxay ogolaadeen inkastoo ayaga kaamirad ay jecleen marka sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana way kasoo hadli doonaan maadaama arrintan ay dhagahooda ka badatay anitan aan ku kalsoonahayba taas waaye waayahay haniyey waxaa leeyahay hadalladaad hadda igula hadlayso kuwa horay aad ugu hadashay iyo kuwa kaloo suuragala inaad dib ugu hadli doonto dhammaantood waxa kaa keenay waad sixiran tahay waxa ku sixiray Kamaal ayaa la leeyahay maxaa ka jira arrimahaas horta arrintaas horta ma umaleynayo aniga iyo Kamaal intaanan ismehersan ka hor horta dad isla jooga ma ahayn dad kala maqan ahayn marka ma umaleynayo Kamaal waji uu ugu sixir way uu ii sixir aniga Kamaal meeqa gabdhood iga qurux badan aa joogta meeqa qofooda aniga iga lacag badan aa joogta yacni oo maanta aniga waxba ma haysto qof calooshiisu shaqaystaha ahay maanta wax gooni oo meel ii yaala ma lahan meeqa joogta oo America iyo Canada iyo joogta oo lacag intay haystaan aan la cadadi karin oo maanta heli karo oo qof social media ku jira uu yahay oo aan u maleynaynin inuu naag marna weynaay way ugu sixran Cabdisalaan waxa hadaladiis kamid ah inuu cadeemo badan keeni karo dadka hadalladaas waxay u turjunteen in uu soo wado xilliyadii aad wada joogteen muuqaalo sawiro idinkoo isla jooga caruurta adoo korinay iyo waxyaabo la mid bal haddii arrimahaasi ay dhacdo muuqaaladaasi sawiradaasi la keeno ma cadeynaysaa in warka aad sheegaysa uu been yahay Cabdisalaan uu ka saxan yahay horta saxaabo taas mid aan gaadho horta sawiro aniga iyo ciyaalka aan isla galgalnay oo kala googooni waa la helaa laakiin mana jirta u maleynaa aniga iyo Cabdisalaan sawir horta adduun hormaraa joognaa mideeda kale anaga Soomaaliya ma joogin sida sanado badan hadda aan ku sheego ogtahay aniga iyo ninka iyo naagtiisana waa ogtaa adiga iyo adnaba hadda sawira isla gashaan si walba dadka ha u kala dheeraado qof ninka iyo naagtiis qabo inay sawir isla galaan ayaga u gooni ah marka taas ma u maleynayo in ay jirto haniyey 25 sano ayuu Cabdisalaan yiri waan wada nooleen oo waan isqabnay marka 25 sano uu sheegay ma waxaad leedahay waxba kama jiro oo 25 ilaa intee in la eegay istaqaanin marka hore Cabdisalaan horta Cabdisalaan xasna qana ilaa 2008 ilaa 2008 2008 ilaa hadeer ma dhamo 25 sano isagana wuxuu yiri waxaan qabay 25 sano bal maxaad kaga jawaabaysaa arrimahaas arrintaas horta waxaan uga jawaab horta Cabdisalaan annaga horta caqabad inuu nagu noqdo horta Kamaal uu ku jiriba Kamaal uu qoraal u soo qoray wuxuu ku dhahay aniga hani ma rabo danna kamalihi laakiin waxaan tusayaa in aan nolosha ku cadaabo oo aniga xataa wuxuu igu yiri markaan dhahay arrintan walaalo ma naga daysid maxay taa waxaan aawadid maxaa cadeynaho haysataa wuxuu dhahay arrintan wax kale kamalihi laakiin waxaan ku tusayaa inaad social media dambo aadan waxba soo dhigin marka arrin hanjabaad ah waalidkii loo hanjabay oo yani Kamaal reerkiisii loo hanjabay aniga reerkeygii loo hanjabay waa ogtahay dadkeenana dad aad masaakiin ah oo waay dhibkaas inay galaan diyaar ma u ahan marka waxa waay anaga dhana mushkilada badan nala galiyeen maadaama intaas aan laga soo hadlaynin hadda arkaysid familada waxa iska haysata caqabada haysata
oo asaga dhankiisa ka imaatay marka waxaa dhihi karaa qofkan qof bini aadan oo anaga noola soo diray waay ma dhihi kara xataa waa shaydaan xataa ma dhihi karo wax asagaaba anaga nagula soo sixray noloshana asaga lagu sixray waayo marka uu ku leeyahay waxaan kugu cadaabayaa nolosha social media dambe inaadan soo galin ayaan ku tusinayaa maxaa keenay hanjawaadaas wuxuu wallahi ma ani xataa wuxuu igu yiri waxaad samaysaa haddaad rabtid arrintaada hoos u hayso haye laakiin social media bataatan ba naga ilaali marka aniga waxaan u fahmay waxaan dhahay keenistii aad i keentay ma weli caqabad ah wuxuu dhahay keenistii aan ku keenay aniga waqtiga iga kaa galay okay haddaa waqti aniga asaga marka maadaama aniga oo asaga i keenay waxa uu rabay inaan qof asagana u keeno caqabada horta ugu weyn meeshaasay ka timid marka anigana laakiin haniye 13 sano xilliga aad sheegtay inuu meesha ku geeyay 13 sano ayaa ka soo wareegtay hadii xiriir uu baahnaa intaas ayuu kula sameyn kari maxay tahay sababta hadda uu leeyahay xiriir maba jiraba xiriir maba ka hadlaaya xiriir ma ahan waa wadankii waa inaa qof iiga soo dacwootid oo xoog ah waayahay cabdisalaan waxa uu yiri waxaan wada hadalnay waalidiinteeda iyo waalidiinteena oo wada jirana mar dhow ayay soo hadli doonaan hooyada ayaa baa hadday soo hadlaan oo ay yiraahdaan hani waa sax caruurtaas ay leedahay cabdisalaan ayaana qabay maxaad ku jawaabaysaa haniyey wallahi ilama ahan taas hadday dhacdana kolley wax dhici karaba ilama ahan inay inta hooyada iyo aabahay soo fariistaan meeshaan ay cabdisalaanka aad aragto horta cabdisalaan horta hadduu damiir leeyahay maanta maba soo fariisteenba oo hadda naagtiisina aan ahay ama xataa naagtiisi iska badaybe naag uu furay xataa qofka bini aadanka ma ceebeynaayo laakiin cabdisalaan hadda ceebta aniga uu ii geystay waxaa waaye xataa aniga waxaan ku sigtay aqoontiisii hore oon xataa hadda runtaan kuu sheega waa aqaanahan ku dhahay soo maha sax waa aqaanaa xataa inaan dhaho xataa cabdisalaan ma istaahilo waayahay lianno waa aragtay waxa baraha bulshada maanta yaala fadeexada aniga la ii geystay yacni taas marmarab waxaas yidhahdaa noloshaada dhanba inaad noolaatid maba ku ahaynba